السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لما أنتم با انت واقو إلى بري خير من الصوت وحالي صبح وناكسن انت كدب دمان ولا الله كالي دافع دونك جوغو كسو دوادا سهيب ساجد ميديا وحان دوني ساكينا نذي لو ذاقو صدح نوع ضدك كامدة. نوع اوغو الرئية وضد عقل بدن وعقل قودو آد وينهي ضدنا عقل قودو واسكمل لحاد كو قدام بيانا وضد كمان قابت اللي يرادو oo aan aqliga balahayn iyagu dadka aqliga badani waxay ka hadlaan yoolashooda hadafyada adduunkan ay u joogaan sidii u xaqiijin lahaayeen sidii adduunku u noqon lahaayeen kuwa guuleystay aakhira markay rabbigood u tagaana u noqdaan kuwa guuleystay oo ilaahi idinkii dhaxla jannada. dadka ku xiga kuwa aqli ahaan waxay ka sheekayaan dhacdooyinka adduunka, waxa Hargeysa ka dhacay, waxa Boorama ka dhacay, waxa Boosaaso ka dhacay, waxa Muqdisho ka dhacay, waxa Nairobi ka dhacay, waxa adduunyada yaale ka sheekayaan kubadii xalal la ciyaaray oo Soomaalidan arkin mid telefishinka intuu hor fariisto TV-ga eeganaya oo hal saac iyo bar ilaa 2 saacadood dul fadhiya oo haddii telefishinka iyo isaga uu qof soo kala dhex istaago wuxuu ka xigaa qofka inuu feer kala daalo. aqli ma jiro nin caag blastigoo la aariyay cayrinaya oo ordayu fiirsanaya. walaalayaalow su'aal baan idin weydiinaya, haddii maanta aan idin araahdo nin hebel oo aanu isku fiicannahay oo walaalkay ah shaqadu ka shaqeeyaan rabaa inaan tago oo iska dul istaago iska fiirsado shaqadiisa, waad la yaabi lahaydeen, waxaad oran lahaydeen ninkaas wuuba shaqaynaya adigu maxaad ka dul qabanaysaa, madaxdiisii ma tihid, maxaad fiirsashada ka helaysaa sooma? nin malaayiin dollar kubad intuu loo aariyay loo dhiibay oo aqli lahayn caag faaruqa cayrinaya oo malaayiin dollar ka sameynaya isagu baad fiirsanaysaa. marka nin shaqaysanaya baad shaqadiisa rabtaa inaad fiirsatid oo dhididaya ordaya baad fiirsanaysaa. waxaa laga rabay gamekaagii inaad ciyaartid. awa gamekaagii in fara badan dadku way ka habsaameen gamekoodii. gamekaagu ma ahayn inaad meesha fadhido eegatid, waxay ahayd naftaada inaad ka shaqaysid say meel u gaarto. kuwa ku xiga oo dadka u hooseeya oo maangaabka ah oo oran karo dadka way u liitaan waxay ka sheekayaan dadka kale heblaayo ma aragtay, hebel ma aragtay, arooskii xalay, waxyaabo aan micno ku fadhiyin bay ka sheekayaan. way isugu yimaadaan wayna ku kala tagaan, aqli kale ma qaban. celebrity hebel, fanaan hebel wuxuu soo heestu soo duubay ma aragteen, hees sidan ah, riwaayada soo baxday, wax micno leh oo adduunka hayaan ma jirto. waxay ku mashquulsan yihiin dadka kale noloshooda, saasayna noqdeen inay kuwa dadka ugu hooseeya ka mid noqdaan.